السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada kanaalkeena Miftaax Tube oo alabaad ka daawataan muuqaalo kala duwan kuwaasi oo aan kaga hadalno hadba isbedelka dunida ku soo kordha barnaamijkeena toddobaadkan waxaan kaga hadli doonaa 25 wadan ee ugu dhaqaalaha badan qiimeyn la sameeyay sanadkan aan ku guda jirno ee 2020 qiimeyntan oo ay sameysay jiriirad ka soo baxda ama fadhigeedu yahay wadanka Mareykanka ayaa isdul taagaysa 25 kaasi wadan waliba horumarka dhaqaalaha militariga iyo xag kasta balse intaana barnaamijkeena u galin fadlan haddii aad ka cusub tahay kanaalkan saaro subscribe Miftaax Tube si muuqaalada ay si durdur ah kugu soo gaaraan hadba marka aan halkan idin soo dhigno mahadsanidin Mareykanka Ruushka iyo Shiinaha ayaa wali ah kuwa adduunka ugu awooda badan xitaa sida dalalka kale ay u arkaan boosaskooda inay hoos uga dhacayaan marka loo eego qiimeynta adduunka ee sanadkan darajooyinka oo ay daabacday mareegaha Mareykanka iyo warbixinada dunida waxay eegayaan sida saameynta ummaddu ugu leedahay iyo waliba awoodeeda siyaasadeed dhaqaale iyo awoodeeda qiimeynta ayaa qayb ka ah daraasadeeda sanadlaha ah kuwani waa 25 wadan ee adduunka ugu awooda badan marka loo eego qiimeynta sanadkan 2025 dalka Masar Mareykanka waxa uu Masar ugu yeeraa mid ka mid ah ilbaxnimadii ugu horeysay ugu weyneed adduunka wuxuuna xusayaa in juqraafi ahaan ay ka mid tahay wabiga Niil iyo badda ay ka dhigayaan xarun dhaqan iyo ganacsi taariikhda oo dhan goobtiisu waxa ay sidoo kale ka dhigtay inay abaalmarin u tahay sheegashada boqortooyooyinkii oo ay u dhigtay xaruntii dhaqdhaqaaqa bulshada iyo diinta Masar waxay kacday 4 meelood marka loo barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay marka oo ay gashay kaalinta 24 dalka Brazil ayaa galay qiimeynta sanadkii 2019 kaalinta 7aad ee adduunka joornaalka Mareykanka ayaa xusaya cabirka weyn ee dalka in uu yahay mid ka soo jiidasho iyo dalxiis badan joornaalka Mareykanka ayaa xusaya cabirka weyn ee dalka in uu yahay mid soo jiidasho dalxiisi ah laakiin sidoo kale jahwareerkiisa laga yaabay inuu ku soo kordhiyo madaxweynaha muranka dhaliyay ee Jair Bolsonaro waxa ay qabataa kala bar dhul badeedka South America Brazil waa mid ugu balaaran qaaradda mid ahaan iyo dad ahaanba intaba taariikhda Brazil waxa ka buuxa jahwareer dhaqaale waxa ay imaanaysaa korar ilaa iyo buuq dhaqankiisuna waa dhari dhalaalaya oo caada ahaan soo dhaweynaya adduunka Brazil waa mid ka mid ah meelaha ugu safarka badan adduunka dalxiiska si kastaba ha noqotee wadanka qarniga 21aad wuxuu wajahayaa su'aalo culus oo la xiriira saboolnimada sinaan la'aanta dawladnimada iyo deegaanka 23 Norway waa halista kale ee qiimeynta 2020 iyada oo ka soo dhaqaaqaysa kaalinta 27aad sanadkii 2019 una dhaqaaqday 23aad sanadkan maqaalka Mareykanka ayaa xusaya taariikhdiisa dhismaha dhaqanka badda saameynta fingiska ku leeyahay wadamada ku dhow Singapore waxay ka dhacday kaalinta 20aad sanadkii hore waxa aas-aasay gumaysi ganacsi oo Ingiriisi ah qarnigii 19aad Singapore waa magaalo aad u xun sida maqaalka uu sheegayo oo ku taala koonfur bari Aasiya waxayna hooy u tahay mid ka mid ah dekedaha ugu mashquulka badan adduunka ayay tiri Mareykanka mareegtada ka soo baxday halka ay sidoo kale xusayso GDP-ga sareeya ee dalka iyo shaqaaleynta hooseysa ayay ka dhigtay quruumaha ugu qanisan adduunka Netherlands ayaa sidoo kale kor uga kacday sanadkan iyaga oo galay kaalinta 26aad sanadkii 2019 wargeyska Mareykanka ayaa xusaya in saddexda wabi ee ugu waaweyn Yurub Rhine, Meuse iyo Scheldt ay dhex maraan dariska Jarmalka iyo Belgiumka si ay u galaan dekedaha ugu mashquulka badan ummadda Yurub kaalinta 20aad Sweden ayaa gashay kaalinta 21aad ee sanadka 2019 oo la macno ah in ay sare uga kacday sanadkan Mareykanka ayaa sheegaya in uu yahay mid ka mid ah wadamada ugu waaweyn midowga Yurub 19 Isbaanishka ayaa loo xushay inay tahay kaalinta 23aad sanadkii hore Mareykanka waxay xusaysaa saameynta ay ku leedahay adduunka kadib 10 sano oo gumaysi ah kaalinta 18aad Qatar ayaa ah riski kale oo weyn waxaana loo taxaabay kaalinta 24aad sanadkii la soo dhaafay maqaalka Mareykanka ayaa xusaya hantidiisa lacageed inkasta oo ay tahay haddana waa wadan hodan ku ah saliidda iyo gaaska dabiiciga ah Qatar waa mid ka mid ah wadamada ugu qanisan adduunka 17 Italy Talyaanigu wuxuu galay kaalinta 18aad sanadkii hore Mareykanka waxay xusaysaa in ay soo jiidatay 40 milyan oo dalxiisayaal ah sanad walba wadanka Turkiga 16 Turkiga ayaa sidoo
sidoo kale galay kaalinta 16 sanadkii la soo dhaafay 2019 waana sanadkii labaad oo uu kaalintan galayo. mareegta Mareykanka ayaa sheegaya in ay hoy u tahay isgoyska u gaarka ah dhaqanka iyada oo qaranku isku xirayo Aasiya iyo Yurub in ka badan 10 sano. loolan awoodeed oo u dhaxeeyay dawladihii militariga ee taageertay iyo dhaqdhaqaaqyo diimeed caan ah oo sii kordhaya ayaa dhaliyay walaac ku saabsan xasiloonida dawladda. Australia waxa ay gashay isla booskaas sanadkii la soo dhaafay ee 15. wargeyska Mareykanka ayaa xusaya in wadanku uu yahay mid qaas ah taas oo ay ku qaadanayso qaarad dhan. India waxa ay kacday 3 meelood marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay markaa oo ay gashay kaalinta 17aad. Hindiya waa 1.4 bilyan oo qof, waa dalka labaad ee ugu dadka badan Shiinaha kadib. Hindiya waa dalka labaad ee ugu dadka badan Shiinaha kadib waxayna ku dhawaad 1.6 meelood ka tahay tirada dadka adduunka. Switzerland waxa ay kacday 1 meel marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay markaa oo ay gashay kaalinta 14aad. sanadkan ayay hoos uga dhacday kaalintaasi. qoraalada Mareykanka ayaa xusaya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu qanisan adduunka waxayna caan ku ahayd qarniyo badan dhexdhexaadnimadeeda. Canada waxa ay la mid tahay tii sanadkii hore. Canada waa dalka labaad ee ugu weyn adduunka dhul ahaan waxaana wargeyska Mareykanka ay leeyihiin lama deegaanka ballaaran ee waqooyiga wuxuu door weyn ka ciyaarayaa aqoonsiga Canada iyo sidoo kale sumcadda wadanka ee soo dhaweynta soo galootiga. Mowqifka Imaaraadka waxa uu la mid yahay sidii uu ahaa sanadkii hore ee 2019 inkastoo wadnaha laga dhowrayo. Imaaraadku waa mid ka mid ah wadamada qaliijka ugu xurriyadda badan lehna dastuur ogolaanaya xurriyadda diinta. Saudi Arabia ayaa ka dhacday 1 meel marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay markaas oo ay gashay kaalinta 9aad. mareegtada Mareykanka waxa uu ugu yeeraa midda ugu weyn bariga dhexe sababtuna waxay tahay dhulbadeedkiisa waxaana xusayaa muhiimadda ay u leedahay muslimiinta. malaayiin muslimiin cibaado leh oo ka kala yimid adduunka ayaa ka qayb qaata xajka sanadka oo dhan. Makka. South Korea Kuuriyada Koonfureed ayaa gashay kaalinta 10aad sanadkii la soo dhaafay. Newska Mareykanka waxa uu xusayaa dagaalka ka socda Kuuriyada Waqooyi. Israel ayaa sidoo kale gashay kaalinta 8aad sanadkii hore wala sanadkii labaad oo ay kaalintan soo fariisanayso. dalka oo aad u yar door weyn ayuu ka ciyaaray arrimaha caalamiga ah. dalku waxa uu leeyahay dhaqaale xoogan, sumad muhiimad u leh diimo badan iyo xiriiro saaxiibtinimo oo badan oo kala dhaxeeya wadamada dariska la ah Carabta. Japan ayaa sidoo kale gashay kaalinta 7aad sanadkii hore. Mareykanku waxa uu ugu yeeraa mid ka mid ah wadamada ugu aqrinta iyo farsamada ugu horumarsan adduunka. Faransiiska isbedel kuma lahan marka loo eego sanadkii hore. Mareykanka waxa uu yiri way adag tahay in si weyn loo dhaafo saameynta ay Faransiisku ku leedahay adduunka waqtiyadii hore kan maanta labadaba waxay ku taalaa galbeedka Yurub. Faransiisku waa mid ka mid ah wadamada ugu qanisan adduunka heerkiisuna wuxuu gaarsiisan yahay adduunka oo dhan xagga sayniska, siyaasadda, dhaqaalaha iyo laga yaabay ka sareeya dhaqanka. laga bilaabo qarniyadii dhexe Faransiiska waxa uu ku fiday boqortooyooyin iyo ugu dambeyntii jamhuuriyad waxay ahayd mid ka mid ah ummadihii ugu horeeyay ee ku guuleystay xuquuqda shakhsiga. lambarka 5aad boqortooyada Ingiriiska ayaa sidoo kale waxa ay gashay sanadkii hore isla kaalintan ee 5aad. Mareykanku waxa ugu yeeraa ummad aad u horumarsan taasi oo saameyn weyn ku leh dhaqaalaha, siyaasadda, sayniska iyo saameynta dhaqanka. waxa kale oo ay xustay codbixintii wadanku in ay ka baxdo midowga Yurub waxayna tiri tan waxa ay keentay walaac ku saabsan doorka wadanku ku leeyahay marxaladda caalamiga ah. Jarmalka ayaa sidoo kale galay kaalinta 4aad sanadkii la soo dhaafay 2019. Jarmalka waa dalka ugu dadka badan midowga Yurub waxa uu leeyahay mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan waxa uu arkay doorkiisa bulshada caalamka in uu si isdaba joog ah u korayo tan iyo markii la mideeyay ayuu yiri mareegta Mareykanka ka soo baxda. lambarka 3aad Shiinaha isma bedelin ilaa sanadkii hore. mareegtada Mareykanka ayaa sheegtay in ay hoy u tahay mid ka mid ah ilbaxnimada ugu da'da weyn adduunka waxayna waa dalka adduunka ugu dadka badan waana mid ka mid ah wadamada adduunka ugu ballaaran. lambarka 2 Ruushka ayaa sidoo kale kaalinta 2aad galay sanadkii hore. qiyaasta Ruusiya way adag tahay in la qiyaaso. Ruushka waa dalka ugu weyn adduunka dhul ahaan ku dhawaad 2 jeer ka weyn Canada oo ah wadanka labaad ee ugu weyn adduunka wuxuuna daboolaa dhammaan waqooyiga Aasiya iyo inta badan badda iyo bariga Yurub. xuduudaha badda
ee ay la wadaagtay Japan iyo Mareykanka. Lambarka koowaad, dalka Mareykanka ayaa sii haynaya mowqifkiisa ah dalka ugu awooda badan adduunka. Newska Mareykanka waxa ugu yeeraa dhaqaalaha ugu awooda badan adduunka iyo militariga, wuxuuna xusayaa hadda dhaqankiisa sumcadda adduunka ay uga mahad celinayso soo saaridda film, TV iyo muusikada. Waxa kale oo ay xustay in mowqifka madaxweyne Donald Trump ee socdaalka iyo ganacsiga ay su'aalo ka keenaan adduunka oo dhan, oo ay ka mid yihiin xulafada ugu dhow wadanka oo ku saabsan mustaqbalka qaran ee heerka adduunka. Daawadayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa 25 wadan ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Waxaad ka daawanayseen kanaalkeena Miftaax Tube. Haddii aad ka heshay barnaamijkan, subscribe saar kanaalkeena, rukumana gambaleelka haddii aad ka heshay muuqaalka si aan u ogaano like saar. Mahadsanidin.